Blockchain-ku waa khaanado isku xidhan oo midba ay ku xidhantahay tii ka horreysay oo kaydinaya xog. Si aynu u fahamno siday blockchain u shaqayso, waxaynu example ku soo qaadan doonaa blockchain-ka ay ku dhisan tahay coin-ka weyn ee isla naqaan ee Bitcoin. Dad badan waxay u haystaan in blockchain-ka ay gaar u tahay cryptocurrency-ga ama lacagaha digitalka ah. Consensus ama iswaafaq la yidhaahdo proof of work. waxaa jira iswaafaq kaloo la yidhaahdo proof of stake oo Ethereum ku shaqayso. Maalin wanaagsan dhammaan asxaabta. Maanta waxaynu halkan kasii wadi doonaa taxanaheennii ka koobnaa 8 tallaabo een ku sharaxi jirnay cryptocurrency-ga. Maanta waxaan ka hadli doonaa aasaaska ay ku dhisantay cryptocurrency-ga oo ah blockchain-ka. Fideogan markaad si fiican u dhammaysato waxaad si buuxda u fahmi doontaa waa maxay blockchain, waxaa loo isticmaalaa blockchain, sidee bay blockchain u shaqaysaa. Haddaad ku cusub tahay channelkan, magacayga waa Yaasiin Yusuf. Waxaan halkan kaga hadlaa cryptocurrency-ga, software development-ka iyo wixii technology-ga ku cusub markaa. Soo dhawow baan ku leeyahay. Subscribe, like, saani kuu dhaafin fiidiyowyada soo socda. Intaa kadib aynu u gudagalno fiidiyowgeena. Blockchain-ku waa khaanado isku xidhan oo midba ay ku xidhantahay tii ka horreysay oo kaydinaya xog. Shabakadda blockchain-ka cid maamusha oo go'aankeeda leh oo go'aankeedu ka soo go'a ma jirto. Musuqmaasuqa iyo wax isdabamarinta lafteeduna meesha kuma jirto. Blockchain-ku marka la joogo lacagaha digitalka ah wuxuu xalliyaa 3 qodob oo aad u muhiima dhibaatana ku hayn jiray dadka. Aynu ku soo qaadanna tusaale 2 qof oo 2 waddan kala jooga lacagna doonaya inay isku soo diraan. Qofka koowaad waxaan u magacaabi doonaa A. Qofka labaadna waxaan u bixin doonaa B. A wuxuu joogaa Kenya, for example. B wuxuu joogaa Somaliland, for example. Haddii ay A doonayso inay B lacag soo dirto $100 oo kale, for example, cilladaha ka hor imanaya waxaa ka mid ah 1 waa inuu helo meel uu mariyo. Wax u dhexeeya oo lacagta intuu A ka qaado B geeyo waa inuu helo. 1 marka waxaas wuxuu noqon karaa ama bangi ama xawaalad. labadaa mid uu noqon karaa ama inuu qof u soo dhiibo dee ay ka lunto ama wax kalaba dhici karaan. Marka bangiga iyo xawaaladuba iyaguna cillado kale ay sii leeyihin. Cilladahay leeyihin waxa weeyaan 1 waqtiga oo yara badan. 2 waxay leeyihin transaction fee ama fee ay qofka ka qaadaan markay lacagta u dirayaan oo qofkaa kasoo dirayo account-kaa kala geynayo. Marka blockchain 3 cilladood ee ay xallisaa marka la joogo lacagaha digitalka ah waxa weeyaan inay horta meesha ka saarto wixii dhexda ku jira ee third party-ga waa inay meesha ka saarto 1 oo cid uma baahnid odhanaysa blockchain-kan ka mas'uulaha ee lacagtaada ay soo maray. Toos baad wallet-kaaga uga soo diraysaa, toos baad wallet-kiisa ugu diraysaa qofkaad u dirayso. Taa horta meesha way ka saartay. Ta labaad waxay yaraysay waqtigii la qaadan jiray uu qaadan jiray transaction-kaas inuu dhaco. Ay lacagta ku soo gaadhi lahayd B ayay meesha ka saarto iyadana yaraysay. Waxa kale meesha ka saartay oo yaraysay lacagtii qaaliga ahayd ee fee-ga ahaa, transaction fee-gii ayay ka dhigtay lacag jaban oo qof kastaaba afford gareyn karo. Marka 3 cilladood ay dadku aad uga caban jireen berigii hore intaanay blockchain ku soo bixin. Imikana aanay ka cabanayno inkastoo aanu usage-keedu blockchain-ka weli faafin oo dad badan isticmaalin, laakiin inta isticmaashaa ay ka faa'iiday oo ay ka nasatay ayaa 3daas. Si aynu u fahamno siday blockchain u shaqayso, waxaynu example ku soo qaadan doonaa blockchain-ka ay ku dhisan tahay coin-ka weyn ee isla naqaan ee Bitcoin. Haddaba waxay leedahay conceptyo blockchain-ka ka dhiga blockchain ama technology-ga ka dhiga. Concept-ka koowaad ee maanta isla fahmi doonaa wuxuu noqon doonaa block. Hadda lagu yiri blockchain. Block-tu wax kale maaha. Block waxa weeyaan khaanad ka mid ah khaanadahan isku xidhan ee blockchain-ka samaynaya. Marka block haddaan sawiro oon saa u sawiro waayahay. Bloggan waxaan u bixinayaa block A. Block kasta oo blockchain-ka ku jira wuxuu ka kooban yahay 3 shay. 1 xogta uu sido. 2 sumadiisa.
saddex sumadda blogga ka horeeya. waa sababta sumadda blogga ka horeysa waa sababta keentay inay isku wada xidhnaadaan blockchainka oo midba midii ka horeysay uu ku xidhnaado. marka bloggu intaa weeyaan. waxaa jira isaguna concept kale oo la yidhaahdo distributed ledger ama Soomaali ku noqonaya diiwaanka firiidhsan ee ku firiidhsan dadkii network accesska u haystay. haddaba saynu u fahanno diiwaankan firiidhsan waxaynu soo qaadan doonaa tusaale ah 4 qof oo shabakad ku wada xidhan blockchain ah oo doonaya inay lacag isku diraan. 4 qof, qofka koowaad waxaan odhan doonaa magaciisu waa A, ka labaad B buu noqon doonaa, ka saddexaad C buu noqon doonaa, ka afraadna D baynu u bixin doonaa. haddaba diiwaanka ka dhexeeya afartooda xaggan aan ku sawiri doonaa saanay inooga waaran. waxaan odhan doonaa diiwaanka. okay, so diiwaankani wuxuu diiwaan geliyaa dhacdooyinka ka dhacaya blockchain network ah. for example, dhacda halkan ka dhacday oo waxaynu nidhi block baynu samaynay, ninka ee la yidhaahdo ayaynu siinay $10 saynu ugu bilowno transactionska. markaa diiwaankii imika mid kasta markaa diiwaanka waxaan usoo gaabsan doonaa saanan waqtigeeda ka lumin oonan sawirka badin xarafka da ama da'da yar. marka A diiwaanka copy u haystaa, B diiwaanka copy u haystaa, D diiwaanka copy u haystaa, C na diiwaanka copy u haystaa. marka D-daa yar aragto diiwaankan ay u taagantay ama sawirkan halkan ku sawiray. marka mid kastaaba imika uu haystaa inay A haysato $10. for example, A waxay u dirtay B $5 for example. marka maxaa la samaynayaa? diiwaankii baa lagu darayaa block kale oo ah A waxay u dirtay B $5. waana la isku xidhayaa labadii block. oo bloggani imika waxay leedahay blog ay ku xidhanto oo leh sumadii ay kaga xidhmisay. for example, haddii ay B u dirtiraahdo D lacag oo ay usoo dirto $2 for example, block kalaa meesha diiwaanka la gelinayaa oo ah B ayaa waxay u diraysaa D $2 waana lagu xidhaya. okay, haddaba haddii intay A isqaado ay tiraahdo u dhac dadkan oo ay istiraahdo waxaad C u dirtaa $15 for example, blogga lagu dari maayo diiwaanka waayo dee qof kasta oo networkan ku jira 4 qofba waxay arkayaan inay A $10 keliya haysatay, $10 ay $5 u dirtay B oo aanay $15 haysan imika. marka blogga waa la cancel garaynayaa, xaggaasaana u leeyahay lagu dari maayo diiwaanka ka dhexeeya dadka. okay, intaa waan isla qaadanay. haddaba sideebaa diiwaankan loogu darayaa blogga? concept kalaa jira oo aynu u baahanay inaynu ka hadalno. conceptkana waxaa la yidhaahdaa mining. miningku waa processka inta transaction lasoo qaado lagu daro diiwaanka laguna update gareeyo diiwaanada dadka koobigoodu haystaan. okay, so miningku siduu u shaqeeya haddaba aynu soo qaadano 4 qof A, B, C iyo D. aynu nidhaahno mid kastaaba diiwaanka wuxuu haystaa koobigiisii, diiwaankiina waa kan. okay, diiwaanka aynu ku bilowno inay A haysato $10. marka aynu ku xidhno block kale oo dhacay oo aynu nidhaahno A waxay u dirtay B $10.
Okay, so haddaba miningka marka networka bitcoin la joogo waxaa jira networkan afarta qof ah ayaa special nodes ku jira ama dad ka mid ah ayaa waxay noqdaan oo ay doonayaan inay noqdaan miners wax la yidhahdo. For example, networkan waxa minerka ah A iyo D example ahaan. Marka imika marka bloggii ay diiwaankeedii wada haystaan, haddii ay markaa transaction dhacayo waxa la samaynayaa for example B ayaa wuxuu doonayaa inuu C u diro $5. Okay, so B markuu halkaa taagan yahay wuxuu odhanayaa waa dhammaan ha la wada ogaado waxaan u dirayaa $5 C, qofkaa C la yidhaah baan u diraya. Markay intaa soo gasho updatekaasi networka uu soo galo waxaa tartamaya minerskii. Minersku maxay ku tartamayaan? Laba shaqo ay ku tartamayaan. Labada shaqo waxa weeyaan ta koowaad hubinta transactionkan oo ah the easy part, oo ah waxani qofkan lacagta diraya lacagtan ma haystaa uu dirayo, lacagtan ma jirtaa oo balancekiisa ma ku jiraa, iyo samaynta sumadda blogga lagu dari doono diiwaanka. Okay, imika minerskaynu haysanaa waa 1 iyo 2. Labadan ayaa ku tartami doona labadan shaqo. Kolba kii hor dhameeya ayaa wuxuu qaadan doonaa abaalmarin bitcoin imika ayuu qaadan doonaa. Abaalmarin yar buu qaadan doonaa. Bloggii cusbaana wuxuu ku dari doonaa diiwaanka. For example, imika waxaanu siinay inay D qaadatay oo kale ku guuleysatay. D markay ku guuleysato, D wuxuu samaynayaa wuxuu hubinayaa transactionka. Markuu hubiyo uu yidhaahdo B may haysataa $5, haa A baa toban soo transfer garaysay $5 way haysataa, ayuu odhanayaa okay taas way hubintay. Wuxuu u gelayaa inuu sameeyo sumadda blogga lagu dari doono diiwaanka. Marka bloggii buu samaynayaa, diiwaankiisuu ku darsanayaa marka hore. Markuu bloggii sameeyo uu verify gareeyo, diiwaankiisuu ku darsanayaa. Markuu diiwaankiisa ku darsado ayuu odhanayaa networka ciddii ku jirta bloggan waan verify gareeyey waana transaction saxa. Wuxuu odhanayaa markaa wuxuu networka siinayaa bloggii B to C $5 iyo sumaddii bloggan lagu garanayay. Sumaddii buu siinayaa. Marka qof kastaaba wuu arkayaa oo blog cusub baa lasoo generate gareey, wuu qaadanayaa, wuxuu ku darsanayaa diiwaankiisii. Marka diiwaankii baa lagu wada daray B to C $5. Marka horta saasay u shaqaysaa. Way jiraan blockchain badan oo ka duwan oo imika blockchain-kan aynu sharaxnay waxa uu ku shaqeeyaa consensus ama iswaafaq la yidhaahdo proof of work. Waxaa jira iswaafaq kaloo la yidhaahdo proof of stake oo Ethereum ku shaqayso, laakiin waxaan insha Allah a bit advance bay halkaasi gelaysaa oo waxaan kaga hadli doonaa si detailed ah koorskan gacanta ku hayo insha Allah. Maanta intaasaynu conceptka guud uga qaadanaynaa blockchain iyo say u shaqayso. Dad badan waxay u haystaan in blockchain-ka ay gaar u tahay un cryptocurrency-ga ama lacagaha digitalka ah, laakiin blockchain-ku waxay leedahay faa'iidooyin badan ama use cases badan oo ka ballaaran intaa. Blockchain-ka waxaa loo isticmaali karaa doorashooyinka in lagu sameeyo, waxaa loo isticmaali karaa guryaha iyo diiwaangelinta dhulka, waxaa loo isticmaali karaa medical recordska in lagu diiwaangeliyo, waxaa loo isticmaali karaa amaahaha ay dadku kala qaataan. Waxyaabaha loo isticmaali karo waxaan ka magacaabay dhowr ka mid ah, laakiin intaa way ka badan yihiin. Wax kasta oo gala maaragtay system leh imika blockchain-ka waa la samayn karaa. Blockchain-ka waxaa loo isticmaali karaa supply chain-ka ama logistics-ka, waxaa loo isticmaali karaa accounting-ka, waxaa loo isticmaali karaa wixii aad maaragtay system u samayn lahaydba waa loo isticmaali karaa. Maanta intaasaan kusoo koobayaa. Haddii aad ka faa'iiday videogan, please like noo saar, sharena dheh si aan u gaarno dad badan oo iyaguna ka faa'iidaysta casharkan. Weekii 2 jeer baan soo gelin doonaa insha Allah cashara noocana.
haddii aad doonaysa inaanay ku dhaafin subscribe taabo meesha yare jalskeerna ku dhufo si uu kuu notify gareeyo YouTube ama kuula socodsiiyo markaan soo gelino video cusub. Waad mahadsantiin.